soo dhaweynta ciidamada difaaca ee Puntland ee gobolka Karkar waxaa ka soo qayb galay saraakiil haween iyo dhammaan qaybaha bulshada ee gobolada Nugaal iyo Sool iyadoo ciidankani ay qayb ka noqon doonaan ciidamada xoreynta ee gobolka Sool. shacabka reer Garowe waxaa maanta lagu soo dhaweynayaa ciidamada qalabka sida dhammaantood isugu yimaadeen ciidamada kaydka kumaandoosta kaydka ee ciidanka Puntland ee ka soo baxaya gobolka Karkar. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa halkaan la isugu yimid soo dhaweynta ciidanka iyaga kumaandooska ee kaydka u ah gobolka Karkar waa qaybtii labaad. waxaan aad ugu faraxsanahay ciidamadayada kaydka ciidamadayada birta calashaday ciidamadayada abeesooyinka kala gooya ciidamadayada cadawga iska celiya oo kaydka ayaanu maanta haddii ilaahay idanka dhama waxaan ku soo dhaweynaynaa 22aad. Cabdullaahi Maxamed Barre gudoomiyaha gobolka Karkar iyo qaar ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay ciidankan ayaa sheegay inay halkan u yimaadeen ka qayb qaadashada difaaca deegaanada Puntland. waxaanu galabteed ku wareejinaynaa ciidanka idin hortaagan iyo teknikadiisii oo wada dhan insha Allah haddii Rabbi idin ka dhigo waxaanu doonaynaa sida ay tahay inaanu uga qayb qaadano guud ahaan ama gobol ahaan difaaca gobolada Puntland sidii dhammaan ummadda reer Puntland maamulka reer Puntland oo hogaaminaya madaxweynaha dawladda Puntland mudane Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay go'aanka ugu gaareen inaan gobolada Sool iyo Sanaag aynu gorgortan dambe gelin haddii ilaahay idanka ka dhigo. cidda soo duushay waa la yaqaan cidda gardarrada waday waa la yaqaan dadka Soomaaliyeed oo reer Somaliland dad hadda colaadda u siban maahe wax badan oo sharaf leh baa ku jira muusana way sarkaynaa iyo nimankan jeegaanta la yiraahdo jeegaanta way sarkaynaa asalkoodaanu gaaraynaa salkooda. halkan waxaa ku diyaara ciidamo cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland gaar ahaan guutada 48aad ee gobolka Karkar. ciidankani markii kaliya u soo jahaysto maaha dagaal ka dhana cadawga dhul badan buu gacanta ka soo mariya cadawga. Generaal Muxiidiin Axmed Muuse taliyaha ciidanka la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka ee Puntland oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka dib loogu xoreynayo gobolka Sool ayaa u mahad celiyay maamulka gobolka Karkar waxaana uu fariin cad u diray hogaamiyayaasha maamulka Hargeysa oo sheegay inaan halkan la is hor fadhin doonin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ilaaba weyno waaxida aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in halkan galabta ay noogu yimaadaan guutada 48aad ee gobolka Karkar qaybteeda koowaad oo aan garanayo raggan mid aan u garanayo oo aanu in badan hawlgal wada galay oo aan ku aamin qaba saakay meeshii loo diro inay jawaab waafiya oo lagu qanco ka keenayaan. waxaan ku qanacsanahay inay riyadii Muuse oo qofku soo jeeda wuxuu ku riyoodaa hurdo isagoo taagan buu riyooday oo wuxuu ku riyooday gobolka Sool iyo Sanaag anaale iyo Cayn anaale isagoo taagan ma qarowba ma dubaabba dadka qaadka cuna ku dhaca ma haddii la waa ku rooyahay lahaansha dad waxa jira ay ku dhacdo jiro lahaansha la yiraahdo. ciidankan ayaa qayb ka ah ciidamada Puntland ee aan sida kala go'an lahayn ugu soo qulqulaya jiida hore ee dagaalka ee Tukaraq ay ku sugan yihiin ciidamada cadawga Soomaaliyeedka. Maxamed Saciid Qoslaaye, Puntland TV, Garowe.